Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Saaxiibayaal, waa anigoo ah Yacquub Cabdinaasir. Maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago muuqaal ku saabsan 10 nin ee ugu qurxoon guud ahaan caalamka. Kaalinta 10aad waxaa galay Henry Cavill. Henry wuxuu u dhashay 1983 5tii May. Henry wuxuu kasoo jeedaa dal ahaan dalka British. Henry wuxuu caan ku yahay aktarnimada. Kaalinta 9aad waxaa galay David Beckham. David wuxuu dhashay 1975 2dii bishii May. David Beckham wuxuu kasoo jeedaa dalka British. Dalka British waxaa kasoo jeeda dadka ugu quruxda badan adduunka dhanka dumarka iyo ragaba. David wuxuu caan ku yahay kubadda cagta. Kaalinta 8aad waxaa galay Tom Cruise. Tom Cruise waa aktar kasoo jeeda dalka Mareykanka, qayb lixaad leh kasoo qaatay filimmadii hore ee Hollywood-ka jilana kuwa hadda. Kaalinta 7aad waxaa galay Cumar Burgaan Al Ghal. Wuxuu dhashay 1989 23dii Sebteembar. Cumar wuxuu kasoo jeedaa dal ka mid ah dalalka Carabta, waana dalka Ciraaq. Cumar wuxuu caan ku yahay dhanka moodeelka. Kaalinta 6aad waxaa galay Chris Evans. Chris Evans waxaa sidoo kale loo yaqaan Captain America. Wuxuu dhashay 13dii Juun 1981. Chris Evans waa aktar Amerikaan ah, da'diisuna waa 40 jir. Kaalinta 5aad waxaa galay Robert Pattinson. Robert wuxuu dhashay 13dii May 1986. Robert da'diisu waa 35 jir. Dal ahaan wuxuu kasoo jeedaa dalka British ama UK. Kaalinta 4aad waxaa galay Samir Helder. Wuxuu dhashay 8dii Diseembar 1978. Samir Helder waa 43 jir, kana soo jeeda dalka Mareykanka, wuxuuna caan ku yahay aktarnimada. Kaalinta 3aad waxaa galay aktarka caanka ah ee aad wada garanaysaan, Hrithik Roshan. Hrithik wuxuu kasoo jeedaa dalka India. Wuxuu dhashay 1974 waana 47 jir. Kaalinta 2aad waxaa galay Zayn Malik. Zayn Malik wuxuu dhashay 12dii Janawari 1992. haatan waa 29 jir. Asal ahaan wuxuu kasoo jeedaa dalka Bakistan, hase ahaatee wuxuu ku dhashay dalka British. Waa heesaa iyo abwaan alifa heesaha. Kaalinta 1aad waxaa galay Kim Tae-young. Kim wuxuu dhashay 30kii Diseembar 1995. haatan waa 26 jir. Sidoo kale Kim Tae-young haatan waa heesaa iyo abwaan alifa heesaha.